السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا سو دواadad baan idin salaamay maanta waxay ka shidan tahay naadigay ka shidan tahay meelkana waxa waaye warfa amal soo farxadeed weeye laakiin aniga ma faraxsani waxaan la murugaysanay walaashay geerida ku dhacday gabar Soomaaliyeed Xamdi Maxamed Faarax aad baan uga xumahay walaashin shankaroon asxaabtayda waxaan aad uga xumahay inay maanta gabar Soomaaliyeed wiilal Soomaali walaahi ma dhigi karo kuwa Soomaali waa laakiin se wiilal Soomaaliyeed inay yihiin baa la sheegayaa dibaatada ku dhacday walaashay gabar Soomaaliyeed aad baan uga xumahay kufsi iyo geeri dhimasho dil gabdhaha Soomaaliyeed waa ku bilaabatay dhibaatada waa ku bilaabatay tii Caaisha soo dhacdayba ma la kala joojinayo cadaaladna heshaan Ilaahay ka rajaynayaa maxay haytaan walaashay Xamdi Maxamed Faarax gabar Soomaaliyeed ardayada mustaqbalkii u bixi adduunka oh my god aadaan uga xumahay waxa ku dhacay iyo siday u dhimatay maalin bay dhiman lahayd ayada maalintay dhiman lahayd bay noqotay laakiin waa geeri naxdin leh aad iyo aad baan uga xumahay waxaan sorry ciyaalka meesha xadiiqada yaayacaya waxaan aad iyo aad uga xumahay inay maanta wiilal Soomaali sheeganaya gabadh walaashooda intay tacadi u geysteen oo xad gudub u geysteen haddana nafteedii maxay haytaan adduunkana ka dhaafiyeen ma dhihi karo kuwaas waa wiilal Soomaaliyeed waa kuwii aan dhalay waa kuwii nala dhashay waa kuwii na dhalay ma dhihi karo kuwaas waa wiilal Soomaaliyeed kolley waa arxan darayaal waa dad aad u xun waa qadar kolley wax kasta waa qadar Rabbi laakiin waxaan leeyahay horta iyada Ilaahay hoygeeda jannaha ka yeelo kuwaas arxan laawayaashana Ilaahay ummadda ka soo qabto waxaan Ilaahay ka baryaa inay cadaalad hesho dhammaan cid kasta oo garanaya wixii Xamdi dhibaatada u geystay waxaan kula dardaarmayaa inay haday wax qof kasta oo og meel ay dadkaas ku sugan yihiin iyo hadii la hayo dadka la haya xaqiiqo yihiin in dadkaas cadaalad la waafajiyo inay gabadhaas cadaalad hesho waxaan uga tacsiinayaa dhammaan ehelkeeda family-geeda iyo asxaabteeda iyo ardaydeeda wax la baran jirtay dhammaan waxaan leeyahay inaan la wayna Ilaahay raajicuun walaashin Xamdi way naga tagtay naga dhanay naga baxday Ilaahay u naxariisto samiriyo iimaan geerido xanuun way kala xanuun badan qof kasta maalin buu dhimanayaa laakiin waxa kugu daran qof oo hay haytan qofkaaga si xun u dhintay markaas waxaan Ilaahay ka baryayaa in Ilaahay dadka qalbiga u qaboojiyo dhibaatadana in maxay haytaan waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya inay dhibaatada tan wax ka qabato gabdhaha Soomaaliyeed xad gudubkan lagu hayo inay wax ka qabato ayaan ka codsanayaa madaxda dawladda ugu sareyso madaxweynuhu ugu sareeyo waxaan leeyahay mudane madaxweyne dadkan cadawga oo gabdhaha Soomaaliyeed dhibaatada u geysanaya waxaan rajaynayaa in gacan lagu soo dhigo cadaalad la mariyo asxaabtayda intaasaan barnaamijkaas ku soo gabagabeynayaa waa barnaamij gaaban waan murugaysanahay laakiin asxaabtayda iga raali ahaada waxaan la murugaysanahay walaasheen igu qaata wax kasta oo maanta u cadhaysanahay dadka ila socda waxay ku jiraan jawi farxadeed meel wax joogna waa meel dadka inay ku farxaan tagaan laakiin aniga inaan ku farxo ma iman asxaabtayda aad baan idin salaamayaa barnaamijkan waa walaashin shankaroon si share gareeya la wadaaga asxaabtiina kale intii la joogtay soo dhawaada wad mahadsantiin inta igu soo biiraysa igu cusub barnaamijkayga
markii ugu horeysay oo maxay tahay channelkayga soo baaqatay hadday tahay subscribe-ta like-ta commentigana wixii maxay tahay aad barnaamijkan ka qabto fikrad commentiga igu reeb xagga hoose asxaabtayda aad baan idin salaamaya guul baan idin rajaynayaa aan isla soconno assalaamu calaykum waraxmatullaah